Assalaamu calaykum ku soo dhawaada janalka maalmaha. Waxaan idiin soo gudbinaynaa qiso cibro qaadasho leh. Hooyo ayaa waxay dhashay 3 wiil, waxayna ahayd inay mar waliba ku dadaalayso noloshooda iyo mustaqbalkooda. Markii ay 3dii wiil weynaadeen ayay mid waliba u guurisay gurigoodna dejisay. Muddo kadib waxay doontay inay imtixaanto si ay u ogaato meesha ay ka joogaan iyo sida ay ula dhaqmayaan. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa hooyadii waxay soo boqotay wiilasheeda midkii ugu weynaa gurigiisa. Halkaas ayayna habeenkii jiifatay. Markii la gaaray salaadii subax ayay waxay ka codsatay wiilkeedii xaskiisii inay u keento biyo weyse qaad ah. Markii ay u keentay biyihii ayay ku weyse qaadatay, kadibna salaadii ayay dukatay. Markii ay salaada ka baxday ayay biyihii waxay ku shubtay sariirtii ay ku jiiftay. Gabadhii ayaa waxay u keentay hooyadii shaah. Kadib hooyadii ayaa ku tiri gabadhaydii sida aad ogtahay dadka waayeelka ah xaaladooda. Xalay markii aan jiiftay waan isku kaadiyay. Xaaskii ayaa aad u carootay. Kadibna suxun ayay u caysay hooyadii. Waxayna ku amartay inay dhaqdo firaashka sidii uu ahaan ay ka dhigto. Mar dambana aysan arrintan oo kale ku samayn gurigeeda. Hooyadii waxay dhaqday maradii sariirta ayadoona caradeeda isku celinayso. Kadib waa ay ka soo tagtay. Waxayna soo aaday wiilkeedii labaad gurigiisii. Waxayna ku samaysay sidii oo kale. Xaaskii ayaa iyadana sidoo kale aad u carootay. Dhiiggeedana 100 uu gaaray. Waxayna u sheegtay ninkeedii ay ku tiri ma u jeedaa hooyada waxay uga samaysay. Aad ayay u caysay. Wiilkii ma uusan ka hadlin arrintii xaaskiisa ay ku samaysay hooyadii, balse raalli ayuu ku noqday xumaanta lagu sameeyay hooyadiis. Kadib hooyadii way soo baxday waxayna soo aaday gurigii wiilkeedii saddexaad ee wiilasha ugu yaraa si ay u jiifato gurigiisa. Waxayna ku samaysay sidii ay ku samaysay labadii wiil gurigoodii oo kale. Markii uu waaga bariyay oo gabadhii wiilkeeda qabay ee u keentay shaah ayay waxay ku tiri gabadheedii xalay arrintan ayaa qabsatay. Gabadhii ayaa ku tiri si ay ku jirto naxariis, hooyo wax dhibaato ah ma lahan. Tani waa sida lagu yaqaan ruux markii uu gaboobo inay ku dhacdo. Meeqa sano ayaan dhabtiina ku soo kaadin jirnay innagoo caruur ah, idinkana aad noo sabri jirteen. Kadib gabadhii waxay dhaqday firaashkii wayna carfisay. Hooyadii ayaa waxay ku tiri gabadhayda waxaa jirto islaan saaxiibtay ah, waxayna ii soo dhiibatay lacag, waxayna iga dalbatay inaan u soo iibiyo dahab. Cabirkeedana sida aan arkayo adiga ayuu kula eg yahay. Marka waxaan doonayaa inaad i siiso cabirkaaga si aan saaxiibtay ugu iibiyo dahabka ii soo dirsatay. Gabadhii ayaa hooyadii waxay siisay cabirkeeda. Kadib hooyadii way soo baxday waxayna soo aaday suuqa dahabka lagu iibiyo. Waxayna lahayd hooyadani lacag aad u tiro badan. Lacagteedii oo dhan ayaa waxay ku soo iibisay dahab aad u fara badan. Kadib waxay gurigeedii ugu yeertay wiilasheedii iyo xaasaskii ay qabeen. Waxayna soo bixisay dahabkii ay soo iibisay oo aad u fara badnaa. Waxayna uga qisootay arrintii ay ku samaysay mid waliba. Waxayna u sheegtay inaysan sariirta ku kaadin, balse biyo ay ku shubtay. Ayna doonaysay inay ogaato meesha ay ka joogto. Kadib dahabkii ayay waxay u labistay xaaskii uu qabay wiilkeedii ugu yaraa. Waxayna tiri tani waa gabadheedii runta ah. Ayada ayaan la noolan doonaa markii aan gaboobo ilaa aan ka dhimanayo. Labadii xaas ayaa aad u naxay. Waxayna ka shalayeen wixii ay ku sameeyeen sodohdood. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay samafalka abaalmarkiisu waa samafal uun kaliya. Waad ku mahadsantahay daawashada janalka maalmaha. Haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe dheh si ay kuu soo gaaraan waxyaabaha cusub aan soo dhigi doono. Mahadsanid.